السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود ميك سو دنيا ka joogta oo naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkii kulanka Shibiley Somali Channel oo ah barnaamij toddobaad waliba in kaga yimaada stuudiyaha labaad ee TV-ga Somali Channel ku leeyahay magaalada Nairobi waa xalqadii 11aad sheekh qof ayaa waxa uu leeyahay assalaamu calaykum sheekh waan idin salaami adiga iyo sheekha walaal salaani ka bacdi magacaygu waa Cabdimaalig Cumar waxaan qabaa su'aal ah aniga markii aan masquul galo oo aan soo guto xajada muddo waxaan isku arkay markii aan musqusha ka soo baxo oo aan weyse qaato oo aan banaanka imaado gacmahayga waxa ka soo ura saxaradii salaada markii aan tukado kadib xitaa marka qaar waxaan soo arkaa saxaradii oo gacanteeda ka soo uraysa marka waxa uu leeyahay waan hubaa boqolkiiba inaan gacmahayga aan dhaqo marka sheekhow salaadeyda iyo dharkayga wax may u dhibaysaa oo dharka miga najaaseynaysaa بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد الصلاة شريعة إن الإسلام وحوه أمري نظافة الطهارة مركي لا حرير تحونها لقوي سقاطه يا صلاة مركي جودهان صلاة بلا يرادنا شروط ولا مركز توحى كمده إنه درك طاهر يهي فيش تاجنت هي طاهر تهي شركة ونا طاهر يهي صدرت دورت ضدك وحواجب كواه انت كران كودا inay ku dadaalaan nadaafada iyo tahaarada najaasada la iska taahiriyeen ay ku dadaalaan najaasadu saddex astaamood bay leedahay muuqaal ili qabato oo midabku ka mid yahay dhadhan wuxuu u leeyahay iyo ur ay leedahay asalku saddexdaas waa in la zuuliyo ama ay meesha ka baxaan haddii ay dhacdo inay adkaadaan mararka qaarkood midabku inuu baxo sida dhiigga gabdhaha ku dhaco kaleeto dharkii hadduu gaaray adkaata inuu baxo ama dadka xoola dhaqatada oo kaleeto xilliga ay barwaaqadu jirtay xooluhu tigaada ama deegaanta qaarkood ay daaqaan xaarkoodu hadduu marada gaadho midabku inuu baxay adkaanayso ama waxyaabaha lagu riinjeeyey kalar nijaasa oo haddii la dhaqo kalarkii ka gu'i waayaan waa midabkii oo bixi waayey mararka qaarkood hadday dhacdo urtu inay bixi weydo qofkuna uu dadaalay oo dhaqay intii karaankiisaana sameeyey wuxuu noqonayaa waxaasi cafis oo salaadiisii way asaxaysaa waayo qofka wax ka badan laguma taklifayn karo asal waxaa u ah nabigeena sala allahu calayh alihi wasalam bay saxaabiyad la dhihi jiray khawlata binti yasaar radi allahu canha wa ardaaha baa weydiisay tii rasuulka ilaahay oo dhiigga caadadana waa igu dhacaa hal mara keliyaan aan leeyahay marka ma ku tukan karaa maradaas markaasuu yidhi marada wixii uu ka gaadhay iska dhaq waxay tihi hadduu midabkii aan goyn waayana wuxuu yidhi iska dhaq walaa yaduruki aatharu muuqaalkaa soo haray aad adkari weyday waxba ku dhibi maayo marka muuqaalka iyo urtuna mararka qaarkood in la gooyo way adkaataa walidaalika imaamu nawawi raximah allahu tacaala ee rag kale majmuuca iyo rawdatu taalibiinka iyo markay masaladan ka hadlayaan waxay u tiirinayaan jamhuuru ahlilcilmi culimmada badankood ama jamhuuru shaaficiya haddaad niraahno inay ama cafis tahay ama wixii haddii urtii la goyn waayo uu daahir noqonayo lakiin adiga waxaa laga rabaa marka hore inaad ku dadaasho urtii inaad zuuliso ama saabuun isticmaal ama shaambiya wax lamida isticmaal inaad dadaalkaaga iyo karaankaaga wixii aad heli kartay isticmaashaha lagaa rabaa wixii intaa ka bata dee jirka googoo lagu dhihi maaye min baabi alcafwi waadaruura baa lagugu saamaxaya wabilaahi towfiiq qof kale waxa uu leeyahay sheekh assalaamu calaykum waan idin salaamay sheekh iyo bahda Somali Channel salaan kadib sheekh waxaan joogaa wadamada reer galbeedka waxaan gaari aan taxi ka dhigto oo aan ku shaqeysto ka qaatay company waxa la ii sheegay qiimaha gaariga haddaan kaash ku bixinayo haddaan waqti cayiman oo 3 sano ah ku bixinayo inaan lacag cayiman oo ay ii kordheynin oo ay ku darsanayaan haddaan waqtiga ka hor bixinayo lacagtii dursaarka ahayd ay iga yaraanayso saasan ku heshiinay alxamdulillah wax dhib anigu arag ayaan lacagtii bixiyay dibna kumaana qabin inaan lacagta bixiyo ee maxay diintu ka qabtaa alxamdulillah horta marka koobaad su'aalaha noocana intaadan heshiiska gelin bay ku habboon tahay culimmada in la weydiiyo dad heshiiskiina waad gatay waana ku kala baxdeenba
meel hadda haddii lagu yidhahdo xataa heshiiskiinni khalad buu meelaad gaari ku celisiye meelaad wax ku kala noqotaan ma joogtid sa darteed waxaan dhihi lahaa dadka saa'iliinta ama ummadda mujtamaca markay heshiisyada iyo cuquudda aynan garanaynin gelayaan inta aanay boqol u gelin culimmada ha weydiiyaan oo ah xilli hadduu wixii saxan yahayna ay ku socon karaan haddii uu khaldan yahayna ay ka joogi karaan haddii wax laga saxa u baahan uu jirana oo la sixi karana ay saxaan taasi waa marka koowaad waxaan ku tarin lahaa tan labaad heshiiska aada la gashay dee haddii faahfaahintiisii iyo qoraalkiisii iyo wuxuu qodobo ka koobna aan arko baan horta ra'yi cad ka dhihi kari lahaa heshiiskaagan waa saxan yahay iyo waa khaldan yahay waxaa dhici karta intaad sheegtay qodobo aan aynu heshiiska ku jira inay saameyn yeeshaan marka heshiiskaagu adiga aada gashay oo dhani wuu saxnaa iyo ma saxnayn ma dhihi karo maadaama aanan haynin keliya waxaan dhihi karaa intaadii weydiisay laba qodob baa baraarujin mudan ama tilmaan mudan kambanigu muslim iyo gaal wuxuu doonaya ha noqday iyo shakhsiga iyo shirkaduba waxbaa laga iibsan karaa qiimo go-anna waa lagula heshiin karaa oo muddo go-an lagu bixinayo wayna bannaan tahay haddii sida aad sheegtayba ay tahay qiimahan ma kordhayo haddii ay tahay asalku caqdi bannaan wey oo intaasi intii xuduudda sharciga bannaanayd weeye inta aad ka sheegtay hal mid baa u baahan waxaan u malaynayaa in wax intaa ka badan aad ka sheegto qadiyaddaa xilligii ka hor haddaan ku dhammeeyo lacagtii qayb baa iga dhacaysa faa'iidahayda la isaaranayay dee way dhici kartaa wej sharciga inay yeelato oo haddii wuxuu noocan mushaarakada ay tahay mushaaraka almutanaaqisa ama domination mushaaraka ay yihaahdaan way dhici kartaa in wixii isdhimo haddaad waqtigii ka hor ku bixiso waayo asal saamiya iyo faa'iidadii baad ka gadanaysay mar kastood wax bixiso ood qayb dhiibtaba laakiin hadday nooca muraabaxada ahayd oo qiimo go-an lagaaga iibiyey waqtigaa ka hor haddaan bixiya lacagtii qayb baa isdhimaysa heshiiska ka mid ma noqon karto marka heshiiska caqdigaaga qayb nooca uu ahaa baanaan garanaynin laakiin qodobkaasi waa qodob intaa ka badan faahfaahin inuu saa'ilku ka bixiya u baahan haddii ay muraabaxa hal qiimo oo go-ana ay ahaydna way khaldan tahay in wax isdhimo maaha haddii aynan ahaynoo aad qayb intaad bixisay isla yeelateen ood iyar iyar ula wareegaysayna dee xilliga hadduu soo gaabtana way isdhimi kartaa hadduu batana way dheeraan kartaa sida qaacidada almushaaraka almutanaaqisa loo yaqaano ama domination mushaarakada ay yidhaahdaan soo yaryaranayso billahi towfiiq qof kale ayaa waxa uu leeyahay sheekh assalaamu calaykum waan idin salaamay sheekh iyo shaqaalaha TV-ga Somali Channel waxaan ahay nin leh baabuurta waaweyn ee samtareelada marka sakima lagu leeyahay baabuurtaas hadii lagu leeyahay si qaabkee loo bixinaya alxamdulilah masaladu waxba samtareelayaal dhihi mayne qaacida guud waxyaabo badan bay la wadaagaan waxa la yiraahdo zakaatul caqaarka ama la yiraahdo kutubteena fiqiga mustalaxa ay u yaqaanaan almustaqallaat tijaariya waxyaaba iyaga lafahooda aan ganacsiga u oolin laakiin laga faa'iideystay la maashado gawaari tareelayaal aad leedahay sida hadda aad sheegtay tareelayaal ma yahay gawaari weeye laakiin basas baad leedahay shaqeeya magaalada gudaheeda ama tan iyo banaankeeda ka shaqeeyaan sharikad taksiye aad leedahay gawaaridan hay-adaha laga kireeyo company oo shirkada ama mid ama lamaba ka badan baad leedahay waa gaadiid baan ka hadlaynaa intaas waxaa lamid ah guryaad leedahay guryo deegaan oo la kireeyo guryo hoteelo oo la kireeyo aad leedahay dhulal aad kiraysaad leedahay dhulka iyo guriga iyo gaadiidkan lafahoodu beec iyo ganacsi maaha waxaa lamid ah intaas warshad baad leedahay wax soo saarta warshadu waxbay soo saartaa laakiin biraheeda iyo dhismaheeda iyo qalabkeeda rakibani beec maaha waxaa la sii iibiyo nin sii iibiyo soo iibiyo matid bakhaaro waaweyn baad leedahay oo la kiraysto warshad wax soo saartaad leedahay ama gaadiid ha soo saarta ama cunto ha soo saarta ama cabitaan ha soo saarta waxay dooni ha soo saarta waxaa iyo waxa lamidkaa waxaa la yidhaahdaa almustaqallaat tijaariya waxyaabaha ganacsi ahaan baa looga faa'iidaystaa ee iyaga lagama ganacsanayo adiga iyo waxaa kala duwan tareelayaal baad u leedahay nin tareelayaasha meesha u yaallaana wuuba iibiyaaba iyaga laftoodu iibiyaa
adna iyagaad kiraysaa ninbaa guryahan dhisoo iibiya ninna waa dhistayoo waa kiraystaa ninbaa warshado samaysa oo iibisa midna warshadan lafteeda wax ii samaynaysa buu leeyahay waxyaabaha iyaga laftooda aan la beecinin laakiin laga faa'iidaysto oo la kireeyo ama wax soo saara baa zakaatul caqaar marna la geliyaa marna almustaqalaat tijaariya waxyaabaha tijaar ahaan looga faa'iidaysto laakiin iyaga aan ganacsiga hayn baa la yidhahdaa marka warka hordhaca waa ku dheeraadee waxyaabaha sidaasaa jamhuuru ahli lcilmi raxmatullaahi calayhim waxay yidhahdaan wax zakaa kuma waajibto iyada laftooda zaka laga bixin maayo sanadku markuu dhammaadana la qiimayn maayo sanadku markuu dhammaado la qiimayn maayo isbitaaladaa ka mida dadka isbitaalka leh intay dhisaan aan sii gadaynin ee isbitaalka shaqaynayaa ka mida iyo clinikiska iyo waxyaabaha lamidka iyaga iyo qalabka yaalla lama qiimeynayo oo sanad walba intaad qiimayso zaka ka bixi maaha wixii soo saaraan baa xoolaha kale ama lacagaha kale aad leedahay lagu dari sanad markuu u soo wareego wixii zaka gaadha boqolkiiba 2.5 baad ka bixin billahi tawfiiq sheekh qofka leh wuxuu leeyahay assalaamu calaykum waxaan rabaa inaan sheekha weydiiyo haddii khudbada jimcaha af Soomaali lagu akhriyo ka waran sheekho alxamdulilah khudbada jumcadu maqsad iyo gaaya loo jireeyay waxayna la mid tahay khudbooyinkii kale nabigu akhriyi jiray ciida iyo roobdoon hadday tahay haddii ay tahay qorax iyo dayax madoobaad iyo ama qorax madoobaadka tuu nabigu akhriyay sal ly slam khudbada maqsuudka loo jireeyey dadka in la wacdiyo waxna loo sheego lana waaniyo waxna la baro way haddii mujtamaca aada la hadlayso intiisa badani ay fahmayaan luqadii carabiga asalku luqada carabiga inaad ku jeediso way hadiga nabiguna saasuu alayhi salaam laakiin isaguna carab waa qowmkiisana carab bay ahaayeen laakiin haddii aynan jirin dadku badankood aynan fahmaynin oo maqsuudkii iyo ujeeddadii khudbada loo jireeyay asaaskii aan laga helaynin oo dadka aynan garanaynin dadka khudbada luqaday fahmayaan in loogu aqriyaa asala sidaasayna culimmada in badan ka mida qabaan oo ka mid yihiin shufaqada shaaficiyada qaybo ka mida raxmatullaahi calayhim jamiican saas darteed laakiin si labadaba loo jamciyo culimmada shardidii carabiga ee arkaanteedii waa in luqa alcarabiya lagu helo tiri iyo maqsuudkii khudbada loo jideeyey waxaa wanaagsan bay culimmada mucaasiriinta iyo aymo badan fadilayaan in carabigana qayb lagu sheego luqada kale dadka marka ay garanayaan ingiriis iyo af soomaali iyo af sawaaxili kay dooni ha noqoto iyo chinese iyo hindiya luqada dadka lala hadlaya ay fahmayaan maqsuudkiina loo turjumo si khilaafkan aad uga baxdo alkhuruuju min alkhilaafi mustaxabun qaacida loo yiraahdo khilaafkii carabi waa in meesha ku jira warkaanta carabi lagu sheegana aad uga baxdo sunnadii nabiga calaih salaam maadaama carabi ku khudbayn jirayna taa aad u tashabuhdo maqsuudkii iyo ujeedadiina loo gaaro khudbadii carabina lagu daro luqadii dadku fahmayeenna lagu darana waa sida wanaagsan wabillahi tawfiiq sheekh qofka leh waxa uu leeyahay assalaamu calaykum waan idin salaamay shaqaalaha TV-ga Somali Channel iyo sheekh Maxamuud Shibili sheekh waxaan rabaa inaan ku weydiiyo hadda koor ayaa aniga aan garanayn waxaan qaatay lacag riba ah aqoon la'aan ayaa ii geysay oo saas uma aqoonin haddana waan iska bixiyay sheekho maxaan sameeyaa alxamdulilah dii wixii ogaal la'aan ku dhacay insha allah waxay noqon cafa allahu camaa salaf haddii ogaal la'aantaada aad cudurdaar ku lahayd waxaan ku dhihi karaa keliya waxaa weye 2 qodob wixii horena waxay dhici karta inuu kaa soo gaaray istikfaar iyo ilaahay toobad keentay inuu dembiga inuu kaa dhaafo weydiiso qodobka labaadna waxaa dambe mucaamalaadka maaliga eed gelaysa ribadu wax khatar badan weeye wax ka bara axkaamteediyo wixii aad gelaysana culimada weydii ee mugdi kaa geli kara billahi tawfiiq qof kale waxa uu leeyahay assalaamu calaykum sheekh su'aashaydu waa anoo bas ariiriya ku jira oo quraan akhrinaya ayaa waxa igu timid aayad lagu soo jeedayo ana maana awoodin ilaa hal saac kadib sheekhow hadday igu timaado maxaa igu waajiba alxamdulilah horta wax kugu waajiba ma jiro sujuudda quraanka marka la aqriyo la sujuudo asaxul qawlayn sunna way
ama gaari saaraw ama gurigaaga iyo masaajid fadhiya haddii aadan sujuudinba dembi maaha inaad sujuudda ajir iyo fadli baad ka heliyo sunno weeye waajib maaha marka su-aasha hadday tahay maxaa igu waajiba waxba waajib kugu maaha sunnada haddaad rabta inaad gudato maxaad samayn kartaa laba khiyaar baad ay ku furanta waa sunno laga tegi karee qur-aankaaga inaad iska wadato ood sujuudana isaga tagto iyo meesha aad ku aqriyeysay inaad ku sujuuddo waqtiga la aqriyey bay sujuuddu joogtaaye hadhow xagga markii la tagay gurigiiyo maaha meesha aad ku sujuudaysa maxay tahay macnaheedu de sujuudda naafilada salaada naafilada ay akthar shay shabahdaa farad iyo naafilabana meel aad ku sujuuddo haddaad weydo madaxa lagu midaaraayo lagu ishaaraa inaad madaxa intaad kari kasta hoos u yar foorariso baa lagaa rabaa laakiin hal mas'alo oo kale muhiim inaad ogaato sujuudda tilaawada axkaamu salaad miyay qaadanaysaa khilaafka culummada ee ku jira baa ku saameynaya haddii la yidhahdo salaad bay la mid tahay sujuuduna waa xubinta ugu fadliga badan salaada mar haddii sujuud noqoto inta kalena waa la raacinaya axkaamteedii tahaara lagaa rabaa inaad weyse qabto waxaa lagaa doonayaa in haddaad kari karta qiblada aad u jeesato waxaa lagaa doonayaa cawradii inaad asturto haddii culimmada qaar sida ay qabaan la yidhaahdo salaadoo kale iyo axkaamteedii ma laha weysena looma baahna iyo satrul cawrana deedan weyse qabin baa iska sujuudi kartaabay noqon khilaafkaa wuu ku saamayn doonaa ninka culimmadeeda weydiisana hadhow wuxuu ku dhihi doonaa hadba ra'yiga uu ka qabo aniga waxaa raajix ilaa salaada inaynan ahayno istiqbaal qibladu waa sida asalka sujuudaha laakiin tahaaro iyo waxba uma baahna xilliga nabiga calay salam iyadoon la tahaaro qabin cidna loo shardiyin baa la wada sujuudi jiray sida suuratu najmi markuu aqriyo oo kaleetiya sala allahu alayh ali wasalam wabillahi towfiiq sheekh qof kale ayaa wuxuu leeyahay waxaa jira wiil aan wada joognay 5 bilood dhaqan wanaagsan ma aanan ku arag taas oo durbaba igu keentay in aan ka muraal jabo iyo in aan ka raasado agjoogiisa oo aan dan ka gelin marka sheekh aniga oo ka fogaanaya inuu dambi iga soo gaaro karaahiyada aan karaahsaday agjoogiisa ma ka dalban karaa furiin alxamdulilah horta dadku markay isguursanayaan say quluubtu wax israbo isjecel u noqon karto bay haddana quluubtu intay kala boodo isnici kartaa iyadan wax ceebaba jirin nabigeena caleyh sala allahu alayh alih wasalam dadka waa ka tilmaamay ee yidhi alwarwaaxu junuudun mujanada famaa tacaarafa minha talaf wamaa tanaakala minha ikhtalaf arwaaxdani waa junuud ilaahay abuuray bay ahayd oo jirtay oo makhluuq ahayd inta aan jirkan la gelinin in adigaba lagu abuurin jirkaaga bay ruuxdaadu abuurayd arwaaxduna is aragtay ahaan jirtay markay jirka gasha kadib labadii arwaaxdoodu istaqiinay intaan jirkooda la gelinin markay is arkaan durbo way isfahmayaan labadii aan is aqooninna walaalaba ha noqdaane markii ruuxdii la geliyo way kala boodayaan saa darteed waxaad arkaysaa laba maanta isu timidood weligood inay is yaqaanaan aad moodayso arwaaxdoodaa istaqiinay intaan jirkooda la abuurin la gelin laba walaalo ah oon isugu bixinna waad arkaysaa arwaaxdoodaan is aqoonin marka quluubtu way kala didi kartaa haddaba gabadhu haddii intay ninkii sabab kastaba ha keentee nafteeda ay ku kari weydo oo naftu ay diido dalaaq iyo fariin way dalban kartaa xilliga nabigeena dhacday sala allahu alayh ali wasalam thaabit ibni qays ibni shamaas oo saxaabi ahaa sida imaam albukhaari fii saxiixi keyrkood warinayaan bay xaaskiisii nabigu u timi sal alla alay wasalam markaas waxay rasuulka ilaahi oo thaabit laa actibu calayhi fii diinin walaa khuluqin diintiisana kuma dhaliilsani dabeecad iyo dhaqanna kuma dhaliilsani laakiin waa nacay walaakinii akrahu lkufra fi lislaam anoo muslima xuquuqdiisi inaan gudan waayaan ka baqayaa laa ana walaa thaabitun bay hadalada ka mid ahaa aniga thaabit isma arki karno indhahayguna arkaan ma doonayo waa nacay naftaydaa ka soo booday ma doonayo laakiin waxay saas tahay kumayna xadgudbin waxay tihi diintiisana kuma dhaliilsani dabeecadna kuma dhaliilsani laakiin waan ka soo booday marka waxaan ka baqayaa anoo muslina xuquuqdiisa inaan gudan waayo oon xaqiisii ku kufriyo ninkoon haweentu xaqiisii gudan weydana in kufri lagu magacaabo nasuus kale nabiga ka sal slam watakfurna alcashiira waa kii la yidhi nabigu alay slam markuu arkay gabadhu meeshay taagan tahay thaabit wuxuu yidhi beer weyn xoolo badan buu ku siiyo aad buu ku jeclaaye xoolihiisii muu celinaysaa markaas tiri xoolaha dhan waan hayaayo waa celis thaabit buu u yeero wuxuu yidhi warniyahow beertaadii weyneedii xoolihii fiicnaana qaado
gabadhan iska sii daa halka nabigu wuxuu qiray sallallahu alayhi wasallam hadday quluubtu soo kala boodo inay tahay furitaan la kala dalban karo gabadhiina xaq maliid ma dhihino ma canaana nabigu sallallahu alayhi wasallam wabillahi tawfiiq qof kale ayaa waxa uu leeyahay sheekh assalaamu calaykum faysal waa idin salaamay adiga iyo sheekh shibili waxaan ahay gabar Soomaaliyeed oo ku nool wadanka Mareykanka maalin baa waxaan damcay inaan dukaan wax ka gato dukaanka waxaa kaashiir ka ahayd gabar aan aqaano markaas waxay igu tiri waxaan ku siinayaa discounti markaas waxaan u maleeyay in ay shaqaalaha discountigiisa wax iga siinayso waxay iga iibisay alaabtii kala bar qiimahoodii iyadoo baqaysa bay waxay igu tiri ma soo celin kartaa alaabtan sababtoo ah waxaan soo celin kartaa alaabta aan ka gaday sababtoo ah waxaan kala kulmay dhibaato markaas kadib ayaan waxaan ogaaday in ay si tuugnimo ah wax iiga gaday marka alaabtii dukaanka kuma celin karo oo ama lacagtoodii uma celin karo waxaan xisaabi lacagtii ka dhinay dabadeedna waxaan siiyay dad ehelkeeda ah marka sidaas lacagtii ma iga gudmaysaa sheekhow alxamdulilah horta ma celin karo maanan fahmin haddayba iyadii shaqaalahayd soo celi alaabtii leedahay waan cabsanayaa ay ku dartay alaabtii ma soo celin kartaaba hadday leedahay dee iyadaa say u maarayn taqaanee inay alaabtii u celisaa lagu leeyahay alaabta soo celin karta waxaan kala kulmayaa dhibaato ayay ku tiri wixii horena xoolaha qof hadduu leeyahay qofka bini aadamka xoolihiisa gaal xarbi oo dagaal khaniimaad kaga qaadatay aan ahayn khiyaano iyo musuq maasuq laguma qaadan karo ama muslim ha noqdo ama gaal ha noqdo nabiga sallallahu alayhi wasallam waxaa ka sugan qofka muslimkaana sida saxiixa ku qoran laa yaxilu maalu mri'in muslimin ilaa bitiibi min nafsi isaguna raalli kaaga yahay maahane xoriisa ma qaadan kartid hadduu gaal yahayna alaa man dalama mucaahidan xadiidkii ahaa waxaa ka mid ahaa ama xaq ka qaata bigayri tiibi nafsin minhu fa ana xajiijuhu yowma alqiyaama qofkii haddaa isagoon raalli ka ahayn xataa gaal aan dagaal idinka dhaxaynin xolihiisana khaniimo kugu bannaanayn haddii aad ku qaadatay isagoon raalli kaaga hayn khiyaano nabi maxamed baa qiyaamada kula soo istaagi doona dee waa meel adag meesha nabi maxamed alayhi salaam cidda kula garamaysa ee kula doodaysa uu noqonayo sala allahu alayh alihi wasalam meel adag wey xaaraan weyn iyo dembi weyn aad ku jirtay tusaysaa adigu xoolaha aad qaadateen adiga saaxiibadda ciddii lahayd inaad u celisaan bay idinku leedahay xoolo la soo qaatay oo ciddii lahayd la yaqaano cid kalaa la siiyey iyo dad masaakiina la siiyey xaq kaaga gudmi maayo xaqa masaakiintiya waxaa loo siiyaa markaad qofkii lahaa garan weydo wabillahi towfiiq qof kale ayaa wuxuu leeyahay sheekh walaal magacaygu waa cabdinaasir saxana cali waxaan ku noolahay wadanka Mozambique waxaad ii weydiisaa sheekh Shibili niman baa lacag iga qiyaanay niman ayaa lacag iga qiyaanay aan aaminay heshiis baan la galay waan aaminay lacagtii baan u dhiibay kadibna waa la igala goostay lacagtii oo shilin la ima reebin xitaa wadankan markaas joogay oo aan qariib ku ahaa waxaan waayay muddo 7 maalmood ah wax aan cuno maalmaha qaar biyo caadi ayaan cabi jiray kadibna waan ku sii jiray $10,000 ayay ahayd lacagtayda sheekhu dadkaas xaq muulay inaan habaaro oo aan iraahdo ilaahay meel xun lacagtayda hayn kala baxsho dhibaatana kala kulma markaas qofkii dambiga galana waliga waan cafi jiray alxamdulilah habaar haa وهذا دعوة المظلوم وي النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس البخاري غير كوريين markii uu u diray Yaman Mucaadiya u dirayay ee shahaada islaamka ugu yeedho yiri wuxuu yiraahday ka yeelaan u sheeg sadaqa ilaahay inuu ku waajibiyay wuxuu nabigu daba dhigay sanadka aakhirkiisa jumlada qaybteeda wuxuu yiri wa iyyaka wa karaa'ima amwaalihim iyagiyo xoolahooda wan wanaagsan iska ilaali xaq darro inaad kaga qaadato واتقي رواية قاركو دعوة المظلوم قف عبد المذي هباركيس إسكيرالي فإنه ليس بينها وبين الله حجاب يدي الله حجاب مرد حيو الدعاء المظلوم كقال بهان نقضي وأقبله صدرت داد كان مظلوم هدي أتهي عدي كود المذي وحورا كاقادتي أما حق لها كاقادتي قفك ويؤبنان تهي بناني هدي اللي يراد إنو هباره ويؤبنان تهي وانا دعوة المظلوم كسا إلهي كو أقبل سبحانه وتعالى وليس وحن له لها دعوة الدعاء بدل إلهي وحدو بريدا إيجان إنو صوها نوريو
xaqaagiina kaaga soo celiyo labaad ka faa'iidi haddii ducada ilaahay ka aqbalo waxaagii waad heli iyagoo balaayo ku dhacday waxaa kaaga fiican iyagiina ilaahay inuu hanuuniyey wanaagsanaadaadna ducadaad u ducaysay adna malag baa ilaah walaka bimilin intaa in leeg ilaahu sii ku dhihi marka laba faa'iido inaad u alla barida mar haddaad ilaahay baryayso laba u alla bari iyagana ilaahay inuu soo hanuuniyo ducadaada loo aqbalay ajir baad ka heli adigana waxaagii ilaahay kaaga soo celiyo oo kaa siiyo dee waxaagii baad intifaacsan laakiin intaad habaarta balaayo haddee ku dhacdo dee adduunka xaqaaga intifaacsan maysid qof ilaahay inuu kugu soo hanuuniyo ood sabab ugu noqotana wax weyn oo ajir badan waaye saas darteed waxaan dhihi lahaa ilaahay bari laakiin ilaahay u duceeye adna ducayso laakiin ha habaarin laakiin haddii ka tegi weyda inaad habaartood ku ceelbaxdo asal ahaan way bannaantahay ciddii saa kuu dulmida hadduu dulmigaasi jiro bilahi towfiiq sheekh qof kale ayaa wuxuu leeyahay sheekh bacdisalaan waxaan guursaday 8 sano ka hor dhowr mar ayaan sameeyey arrin hadda shaki gelisay taas oo ah laba mar oo isgafnay ayaan xaaskayga waxaan ku idhi waan ku furayaa oo warqad u qoray laakiin marqaati uma yeelin markaan guriga ka baxayna aan ka qoomeeyey isla maalintiina waxaan u sheegay in arrintaasi ay muxuu ahaa ay meel dheediyeysa iga jirin oo aan rabo inaan xaaskayga sideedii ii noqoto mar kale ayaa haddana sidii oo kale aan kala xanaaqnay anagoo kala joognay laba wadan oo kale markaas ayaan haddana waxaan ku idhi waan ku furayaa ayadiina waa iga diiday oo waxay ku adkaysatay inaan mar dambe muxuu ahaa isha furinkaas aysan rabin kadib qof dambe umaana sheegin haddana mar kale anigu wadanka isla joognaa hal wadan aan wada joognaa ayada ayaan habeen isgafnay habeen kale waxaan ku idhi subaxii 3 saac hadii la gaaro haddana waa ku furaya oo arinta sidaa tahay iska bedel weydo qof kale umaana sheegin marka sheekhu arintaas ayaa weel badan igu riday xaaskayga ma sidaas ayay iga furan tahay mise waan qabaa wali alxamdulilah sida saa'ilku sheegay hadday tahay laba dalqadood way tageen kuwii aad qortay markhaatina uma baahna haddaad inkirto unba lagugu cadaynteed ma markhaati loo baahan lahaa laakiin talaaqa dhicitaankiisa keligaa duur cidlaa haddaad joogto oo xaaskaaga waan furay dhahda way furmaysaa saa darteed xaaskaaga labada jeer ee kala duwan ee sida su-aasha ka muuqatay aad waraaqda u qortay inaad furtay dib ka qoomaysay tii koowaadna waa dalqad tii labaadna dalqad wey labada jeer ee kale eed marna wada joogteen marna kala maqnaydeen waan ku furayaa intaad tiri aan haddana furiin dhicin taasi waxaa la yidhahdaa wacdun bialaaqi walaysa bialaaqin waa ballanqaad inaad furi doonto berri subixii berri baa la sugaya inaad furto waan ku furayaa intaad tiri waan ku furay haddaad tiri way furantahay laakiin waan ku furayaa waa ballanqaad ballanqaadka haddaad fulisana way furmi haddaada fulinna furmi mayso haddii intaad saa u tiri ama su-aasha saa ahayd aan u raaco laba dalqadood baa dhacay hal dalqad baad ku wada joogtaan middaa haddaa waan ku furay mar dambe kaa dhacdo qaadoo mukallaf ah dee dalqadii saddexdii waa idinka dhammaatay billahi towfiiq sheekh qof kale ayaa waxa uu leeyahay assalaamu calaykum sheekh shareeca ahaan maxay ka qabtaa in wiil iyo gabar ay ka wada sheekaystaan telefoonka qadka telefoonka ayagoo aan isqabin kadibna guurkooda ay ka wada sheekaystaan ay habeenkiina isdhaafsadaan ereyo jacayl ah laakiinse ay ku jirin wax dhib ah ama waxyaalo xumaan keeni kara oo dareenkooda kici kara alxamdulilah dadku horta way ishukaansan karaan oo way sheekaysan karaan guurka inay ku heshiiyaanna sharcigu aragti iyo inay wada hadlaan waa u ogolyahay waxyaabaha guriga iyo reerkaa ku dhismayo iyo qaab dhaqanka la doonaya iyo sida wax u raba iyo siday wax u rabto si calaa bayinatin ay markaa si cad ay ugu galaan qofkii gelaya labadooda guurka iyo qofkii diidayaba inay isu sheegaan ay ka wada xaajoodaanna way bannaan tahay fuqadeenu tafaasiil badan oo saasoo kale ay ka hadlaan meesha deegaanka oo laga hadlo meeshan lagaa rari magaaladee baa la dejin waxaasoo dhani waa wax la ogol yahay in laga wada hadlo laakiin dee hadday intay ka wada hadlaan inay isguursadaan ku heshiiyaan halkaasaba dee ka muuqataa inay isjecel yihiin labadaba waa khalad war badan oon dhammaad lahayn oo maalin kastaba lahaa saawaya labadii weli iyagoo ajnabi kala ah xaddii daruuraa loo ogolaaday labadan ajnabiga inay wada hadlaan ay haasaawaan xaaje iyo baahi daruuraa loo ogolaaday hadday intii daruuriga ahayd iyo xaajada ahayd dhammaato wixii ka badan sax maaha
hasaawaya sheekaysiga ajnabiga sax maaha hadday rabaan inta inay sheekaystaan iyagoo kala maqan hala isu meheriyo waxay rabaan bay ka wada hadli karaan markaasi waxaa labaad oo khalad ah erayyadan jacaylka abba waa ku jeclahay abaayo waa ku jeclahay nafteedaan kaa jeclahay hebelaan kaa jeclahay sheekadaas oo kaleeto waa baab shar iyo sheeko xun bay furaysaa iyada lafteeda sheekada xun ka mid a iyada lafteeda waa wada hadasheen guur baad ku heshiiseen inaad isjeceshin way cadda in lagu celceliyo waan ku jeclahay beri sheeko kala daba socotiyo inaan wada joognay u eg tahay iyo saa haddaan yeeli lahayn iyo saa haddaan yeeli lahayn sheeko badan baa daba socota marka shaytaankuna markay labadoodu sheeko ku keliyeystaan xataa wuu saddexaynayaa hadday wada joogaanna waa saddexayn hadday khadka ku wada hadlayaanna wuu saddexaynayaa saas darteed xuduudta aadaabta iyo kala xishoodka iyo wax isu hambayntu waa inay weligeed jirtaa hadday saa usii rabaan inay usii galaan reerka intay la xiriiraan hala isu meheriyo markaa telefoon iyo kamera waxay doonayaan ku haasaawaan billahi tawfiiq qof kale waxa uu leeyahay sheekh aabe uu dhintay waxaana lagu yeeshay deen markuu dhintay ayaa walaalkii wiil aabe Allah u naxariistay abtuu waxa u tagay ninkii deynta ku lahaa waxay dhaheen adeer aabe uu dhintay waxaan rabnaa in deynta aad ku lahayd aad ku wareejiso caruurtiisa isagana sidaas ay ku cafiso deyntii aad ku lahayd marka sheekhow arintaasi muwaafaqsan tahay shariicada islaamka alxamdulilah qofka deyn haddii uu dhinto oo lagu lahaa marka hore xooluhu ka tagay raasamaalkay ku waajibtaa intaan dhaxal la qaybsanin baa waajiba xoolihiisa in laga bixiyo hadduusan xoola uga tegin ama ilmihiisii ama dad kale ha noqdaane way ka damaanad qaadi karaan waa cid kaleoo damaanad qaaday way damaanad qaadi kartaa deyntii anaad igu leedahay anigaa ku siinay laakiin ilaa uu siiyo bixiyo qofkii dhintay xaqi waa dul saaran yahay deyntuna way gubaysaa jirkiisa way gubaysaa waxaa sugan nabigeena sal allahu alayh wasalam haddayna daakirada xasuustaydu i khiyaamin min xadiidi jaabir inuu habaan u malaynaya radi allahu canhu wa ardaahu qisadu saxiixay ku taallaa laakiin qaybta aan raba xadiidu jaabir inay ahayd baan u malaynayaa xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam baa nin geeriyooday nabigu wuxuu yidhi markuu ku tukanaya dadka dhintay wuu weydiin jiray oo deyn ma leeyahay deyn ma lagu leeyahay buu dhihi jiray wuxuu yidhi ninka deyn ma lagu leeyahay markaasaa waxaa la yidhi 2 shilin oo dahabaa lagu leeyahay wuxuu yidhi wax lagu bixiye ma ka tegey waxaa la yidhi maya ku tukadu yidhi idinku marka abu qataada saxaabi la yidhi radi allahu canhu wa ardaahu baa rasuulka ilaah anaa bixinaya nabigu 2 su-aalood buu weydiiyey xaqii ninka deynta leh ma adaa qaaday buu yidhi markaasuu yidhi haa su-aal labaad buu weydiiyey wuxuu yidhi meydku dimadiisi iyo qoortiisu ma ka beri noqotay markaasuu abu qataada yidhi haa wuu ku tukaday marka subaxii dambe buu nabigu abu qataada arkay wuxuu yidhi lacagtii ma bixisay markaasuu shalay bay ahayd waxaan aasnay maalin dambe u yimid abu qataada nabiga calayhi salaam wuxuu rasuulka ilaahay lacagtii waan bixiyey deyntii nabigu hadal buu yidhi marka maxalu shaahidkaan raba halkan waaye alaana baradat calayhi jaldatu hadduu ninkii meydka ahaa jirkiisu qaboobay buu yidhi nin baa damaanad qaaday oo yidhi beri buu ka yahay oo anaa bixina yidhi haddana weli dimadii deynkiiya waa loo sii haystaa oo jirkiisa way gubaysaa markii la fuliye bixinta eed ninka xoolihiisa siisaan markaasuu jirkiisu qaboobayaa xadiidkaasi waxaan filayaa xadiid xasana inuu yahay inta xasuustayda aan garanayo billahi tawfiiq sheekh qof kale wuxuu leeyahay walaal magacayga waxaa la yiraahdaa ayaan cali waxaan ku noolahay Sweden waxaan rabaa sheekha inaan weydiiyo maxay diinta ka qabtaa in la sheegto qabiil aad ahayn ama aad u dhalan alxamdulilah asalku ma banaana haddaan xaaje iyo daruura ama xaaje mansilatu daruura geli karta aynan jirin qofku abtiruusan lahayn inuu sheegto ma banaana qabiilkuna de waa abtirkaagi xataa waxaa la diiday oo nusuusta sharcigu ay diiday oo saxaaxa ku qoran in qofku addoon hadduu ahayoo la xoreeyey ciddii xoraysay iyo reerkii xoreeyey cid aan ahayn uu sheegto oo nabigu alay slam leeyahay ninkii hayra mawaalihi u sheegta fa calayhi lacnatullaahi walmalaa'ikati wannaasi ajmaciin aabbihii aabba aan ahayn oo qabiilkiina uu ka dhalanaya ninkii sheegtana faqad kafara waa kii nabi alay slam kufrun duuna kufrin dembi weyn weeye haddaan daruuro iyo xaaje kalifaysa jirin billahi towfiiq
qofka leh waxa uu leeyahay sheekh magacaygu waa maxamed cabdulaahi cumar waxaan joogaa magaalada gaalkacyo waxaan sheekha weydiinayaa aabbahay wuxuu lahaa geel aan sakada laga bixin ilaa iyo intuu jiray geelaasi lama garanayo inta sako ku baaqatay waayo sanadba in buu ahaa geelaas 5 neef oo ka mid ah buu isiiyey aabbahay anna ma ogeen aabbahay inuusan geela sakada ka bixin 2 meelood ayaan ku kala noonahay aabbahay waana yaraa kadib waan iibsaday sanad markii laga joogay sakadii baan kala baxay intii uu isiiyey geelii marka sheekhow aniga ahaan wax miyaa liigu leeyahay aabbahayse sidee sakadii dhaaftay looga bixi karaa geeliisi alxamdulilah ama adiga waxba laguguma laha zakada iyo dimadu aabbaha qoortiisay saaran tahay xaqa masaakiintuna xoolaha milkigiisa ay ku waajibtay inta uu ku siiyey xoolahana wuu gadi karaa wuuna bixin karaa wixii ka badan qadarka zakada lagu leeyahay xoolaha cayaantooduna kuma xaaraantinimowda saa darteed adigu xoolahaad qaadatay wax xaraj iyo culaysa kuma saara gaar haddii aadan ogeynba aabbaha zakadiisa see loo bixin karaa zakadii inaad ogaataan waxa lagu leeyahay wixii lagu lahaa ee zakahan aad ka bixisaan baad kaga bixin kartaan wabillahi tawfiiq sheekh qof kale waxa uu ku leeyahay assalaamu calaykum su'aasheedu waa 3 magac ee aad leedahay waa magacaaga magaca aabbaha iyo magaca awowga midkood haddii la bedelo oo markaasi lacag lagu qaato lacagtaasi xajka ma lagu aadi karaa alxamdulilah horta magaca aabbaha iyo awowga in la bedelo ma banaana wixii daruuraada ee naf iyo wax loo cabsanaya waa baabkeeda laakiin asal ahaan ma banaana nabiguna man iddaca ilaa gayri abiihi wahuwa yaclamu annahu gayru abiihi faljannatu calayhi xaraamun buu leeyahy ninkii aabbihi abbaan ahayn sheegtay isagoo uusan aabbihi ahayn jannadu xaaraan bay ka tahay qaarkood faqad kafara buu leeyahy waa asalku waa xaraam laakiin adig magacaaga waad bedeli kartaa nabigana calayhi salaatu wasalaam magacyo badan buu bedelay zaynab binti jaxsh iyo zaynab binti abi salama labadaba magacyadooda baraa la dhihi jiray inaha tuzakii nafsaha nafteeday zakiyada tahiraysaa buu magaca waa bedelay saciid ibn musayib ibn xasan awowgii xasan baa nabiga u yimid wuxuu ku yidhi magacaa xasan baa la yidhahdaa buu yidhi bal anta sahlun buu yidhi laakiin wuxuu yidhi ani magaca aabbaha ii bixiye bedeli maayo saciid baa wuxuu leeyahy reerkayaga xasan waa qof qallafsan wey qallafkii waa nagu jiray dabeecaddii way naga hari weyday nabiga sala allahu alayh ali wasalam gabarh kalaa loo keenay oo bara la yidhaahdo markaasuu juwayriya u bixiyey magacyada waa la bedeli karaa qofka magaciisa laakiin ka aabbaha iyo awowga lama bedeli karo haddaba magacaagood bedeshaay ama lacag ku qaada ama ku qaadanine way bannaan tahay tan kale magaca aabbaha iyo awowga eed bedeshay iyo lacagta aad qaadatay waxaan u malaynayaa qofku xaggee baan joogaa bay tiri meel ma sheegin laakiin waxa uu sheegay in magaca awowgiis uu bedelay laakiin magaca aabihiisa magaciisana uu diistay lacagtiina uu qaatay xajkiina ku aadan uu rabo waxaan u malaynayaa horta haddayna xasuustaydu i khiyaamin haddaynan macluumaadku iga khaldamin qofka saas ku hadlayaa waa dadka qaxootiyada ama isu dhiibay ama meelahan Kenya intay soo galeen aabbaha kale waxa ku qaatay xooluhu xoola aad shaqaysatay hadday yihiin dee aabba kalood sheegatay oo daruura la'aana dembigeeda iyo xoolahaad shaqaysatay xalaaltinimadooda shaqa iskuma laha sidoo kale haddii aad meel tagtay ood magac kale ama qabiil kala sheegatay sidaana xoola lagugu siiyey waxaad sheegatayna waa dembi shakhsiyadaada baahan oo duruuf iyo shuruud yeeshay waxa lagugu siiyeyna waa xalaal waa wax fuqahadeennu ay yidhaahdaan aljihatu lmunfaka laba kala jiha wey magaca iyo qofka shakhsiyadiisa iyo baahida jiritaankiisa ee wax lagu siiyo iyo wuxuu shakhsiyadiisa ku qabsaday iyo baasaboor magaca ku qoran iyo ficil isagu lugihiisa acmaashii xajka ee Maka iyo Carafiya uu ku tagay shuruudu magacaaga inaad wadata ka mid maaha saas darteed haddii ay tahay mas'aladu qof kalaan iska dhigay oo isagii matalay meel buu qof lahaa xuquuq buu lahaa anaa soo hoos maray oo magaciisii baan sheegtoon ku qaatay taadi waa xaraam waxa la siiyey adiga maaha laakiin magaca marka laga soo tago cayraha la bixiyey iyo inta galbeedka iyo westernka aan ku aqaano qofkan shakhsiga iyo duruuftiisa dhaqaale baa lagu siiyaa hay-adaasi magac shaqo kuma laha hay-ada kalaa magaca shaqo ku leh saa darteed jihal munfaka waxay carabtu ay fuqahadu yidhaahdaan weeyo tanna waa sideeday dembi u tahay
tanna wixii duruufteeda haddaadan ka been sheegin duruufta lagugu siiyey ee kaleeto xalaal bay sideeda u toodi waad ku xajiyi kartaa waxna ka sadaqaysan kartaa billahi tawfiiq شيخ قف كلا waxa uu leeyahay waan salaamiyaa sheekha iyo daadiyaha barnaamijka magacaygu waa Farxaan Cabdullaahi Cigale sheekha waxaan weydiinayaa gabar ayaan qabay sheekhu kadibna walaalkeed baa yiri ii fur gabadha waxayna ahayd agoon waxaan ku iri gabadha waxay ugu leedahay meher wayna naga maqan tahay ee seekayana waxa uu yiri gabadha anaa ka wakiil ah waxna kaaga soo noqon maayaan ee gabadha ii fur waxaan ku furay laba dalaaqadood oo ah shardi dalaaq haddii meherkeeda ay ii sheegato waan qabaa meherka marka waxa sheekha ii weydiisaa sheekhu meherka ma liigu leeyahay mise waa cafis midda kale shardi dalaaq naag ma ku furantaa alxamdulilah shardi dalaaq haa way ku furantaa haddii shardigii la helo la fuliyo gabadha way furmaysaa gabadha sidan aad ku furtay haddaynan meher kuu qabsaninna dalaaqeedi buu dhacaya adna meher waxba laguma laha haddii meher kuu qabsatana dee dalqadii baan dhacaynin oo soo noqonaysa billahi tawfiiq su-aasha ugu dambaysa ayaan rabaa sheekh inaan ku weydiiyo qof ayaa wuxuu leeyahay assalaamu calaykum magacaygu waa cumar waxaan deganahay waddanka koonfur afrika intaas kadib waxaan leeyahay meel internet ah waxaan qoraa siifiyada ama arjiyada shaqooyinka lagu codsado waxaan inta badan ii yimaada dadka kaniisadaha ka socda oo doonaya in waraaqada loo daabaco waraaqadahaas oo lagu wacyigelinayo kaniisadaha ama ay shaqo ka codsanayaan kaniisadaha dadka kirishtanka ah waxaan kaloo oo aan koobi ku sameeyaa cajiiradaha DVD-yada ah oo ayagana qoseeya arrimaha kaniisadaha wuxuu kaloo jira in dadka Soomaalida ay ayagana iga codsadaan in riwaayadaha ama heesaha looga soo saaro internetka oo DVD loogu shubo si ay ugu dhageystaan meelaha ay degan yihiin arrimahaasi oo dhan waxaan ka qaataa lacag marka arrimahaasi maxuu sharciga ka qabaa alxamdulilah lacagaha sheegtay inta badan xaaraan weey heesay riwaayada iyo kaniisadi iyo qofku inuu meel furto arjiyo qoro dad waraaqa u daabacdo wixii aan dambi ahayn wax shaqo banaan asal ahaan laakiin adigu qaybahan aad ka shaqaysay sheegaysay dhammaantood tacaawun cala al-ithmi wal-cudwaani waa dambi baad garab u tahay dambi baad wax ka fidinaysaa dambi baadna wax ka fududaynaysaa saas darteed dunuubta qofkii qayb ka noqda wax ka fududeeyay dambiga qaybtu ka fududeeyay buu qaadanayaa lacagtu ku qaatan xaaraan way billahi tawfiiq daawadaniis waxaan kusoo gabagabeynaa barnaamijka kulanka Shibli ee Somali Channel waa barnaamij toddobaadle ah toddobaad walba in kaga yimaada studio labaad ee TV-ga Somali Channel oo ku leeyahay magaalada Nairobi toddobaad walba barnaamijka ayaa su'aalaha soo weydiisin waxaan nooga jawaabay sheekheena weyn Sheekh Maxamed Shibli dhanka farsamada toddobaad walba waa Cabdiraxiin Darbo timintana waa anigu Faysal Casiir Maxamed qof alaaliyo qofkii doonaya inuu su'aal soo weydiiyo sheekh waxa uu noogu soo hagaajin karaa ciwaanadeena kala kulanka Shibli Somali Channel.tv ama page-kan ku leenahay Facebook oo ah kulanka Shibli ee Somali Channel aad baa mahadsantahay sheekh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود ميك سو دنيا كجوجتا ونغا داوانيسان كسو دواده برنامجكي كلنka Shibli Somali Channel oo ah barnaamij toddobaad walba in kaga yimaada studio-ha labaad ee TV-ga Somali Channel oo ku leeyahay magaalada Nairobi waa xalqadii 11aad sheekh qof ayaa waxa uu leeyahay assalaamu calaykum sheekh waa idin salaami adiga sheekha walaal salaanka bacdi magacaygu waa Cabdimaalig Cumar waxaan qabaa su'aal ah aniga markii aan masquul galo aan soo guto xajada muddo waxaan isku arkay markii aan musqusha ka soo baxo oo aan weyse qaato oo aan banaanka imaado gacmahayga waxa ka soo ura saxaradii salaada markii aan tukado kadib xitaa marka qaar waxaan soo arkaa saxaradii oo gacanteeda ka soo uraysa marka waxa uu leeyahay waan hubaa boqolkiiba inaan gacmahayga aan dhaqo marka sheekhow salaadeeda iyo dharkayga wax may u dhibaysaa oo dharka miga najaasinaysaa bismillah alxamdulillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah ama bacd الصلاة شريعة الإسلام وحوها أمري نظافة الطهارة markay la xiriirto xubnaha laga weyse qaato iyo salaad markii guud ahaan salaadaba la yiraahdana shuruudooda markasta waxaa kamid ah inuu dharku taahir yahay meesha taagan tahay taahir tahay jirkaaguna taahir yahay sadarteed horta dadka waxaa waajib ku ah inta karaankooda inay ku dadaalaan nadaafada iyo tahaarada najaasada la iska taahiriyo inay ku dadaalaan najaasadu saddex astaamood bay leedahay muuqaal ili qabato oo midabku ka mid yahay dhadhan wuxuu uu leeyahay iyo ur ay leedahay asalku saddexdaas
waa in la zuuliyo ama ay meesha ka baxaan. haddiise ay dhacdo inay adkaadaan mararka qaarkood midabku inuu baxo sida dhiigga gabdhaha ku dhaco oo kaleeto dharkii hadduu gaaray adkaata inuu baxo ama dadka xoolo dhaqatada oo kaleeto xilliga ay barwaaqadu jirtay xooluhu tigaada ama deegaanta qaarkood ay daaqaan xaarkoodu hadduu marada gaadho midabku inuu baxay adkaanayso ama waxyaabaha lagu riinjeeyey kalar nijaasa oo haddii la dhaqo kalarkii ka gu'i waayaan waa midabkii oo bixi waaye. mararka qaarkood hadday dhacdo urtu inay bixi weydo qofkuna uu dadaalay oo dhaqay intii karaankiisaana sameeyey wuxuu noqonayaa waxaasi cafis oo salaadiisii way asaxaysaa waayo qofka wax ka badan laguma taklifayn karo. asal waxaa u ah nabigeena sala allahu alayh alih wasalam bay saxaabiyad la dhihi jiray khawlata binti yasaar radi allahu canha wa ardaaha baa weydiisay ti rasuulka ilaahay ou dhiigga caadadana waa igu dhacaa hal mara keliyanaan leehay marka ma ku tukan karaa maradaas? markaasuu yidhi marada wixii uu ka gaadhay iska dhaq. waxay tihi hadduu midabkii aan goyn waayana wuxuu yidhi iska dhaq walaa yaduruki aatharu muuqaalkaa soo haray aad kari weyday waxba ku dhibi maayo. marka muuqaalka iyo urtuna mararka qaarkood in la gooyo way adkaataa. walidaalika imaamu nawowi raximah allahu tacaala ee rag kale majmuuca iyo rawdatu taalibiinka iyo markay masaladan ka hadlayaan waxay u tiirinayaan jamhuuru ahlilcilmi culimmada badankood ama jamhuuru shaaficiya haddaad niraahno inay ama cafis tahay ama wixii haddii urtii la goyn waayo uu daahir noqonayo. lakiin adiga waxaa lagaa rabaa marka hore inaad ku dadaasho urtii inaad zuuliso ama saabuun isticmaal ama shaambiya wax lamida isticmaal inaad dadaalkaaga iyo karaankaaga wixii aad heli kartay isticmaashaa lagaa rabaa. wixii intaa ka bata dee jirka googoo lagu dhihi maaye min baabi alcafwi waadaruura baa lagugu saamaxaya. wabilaahi towfiiq. qof kale ayaa waxa uu leeyahay sheekh assalaamu calaykum waan idin salaamay sheekh iyo bahda Somali Channel. salaan kadib sheekh waxaan joogaa wadamada reer galbeedka waxaan gaari aan taxi ka dhigto oo aan ku shaqeysto ka qaatay company waxaa la ii sheegay qiimaha gaariga haddaan kaash ku bixinayo haddaan waqti cayiman oo 3 sano ah ku bixinayo inaan lacag cayiman oo ay ii kordheynin oo ay ku darsanayaan haddaan waqtiga ka hor bixinayo lacagtii dulsaarka ahayd ay iga yaraanayso saasaan ku heshiinay alxamdulillaah wax dhib anigoo arag ayaan lacagtii bixiyay dhibna kumaan qabin inaan lacagta bixiyo ee maxay diintu ka qabtaa? alxamdulilah. horta marka koobaad su-aalaha noocana intaadan heshiiska gelin bay ku habboon tahay culimmada in la weydiiyo. daad heshiiskiina waad gatay waadna ku kala baxdeenba meel hadda haddii lagu yidhahdo xataa heshiiskiini khaladba waa meelaad gaadhi ku celisiye meelaad wax ku kala noqotaan ma joogtid. sa darteed waxaan dhihi lahaa dadka saa'iliinta ama ummadda mujtamaca markay heshiisyada iyo cuquudda aynan garanaynin gelayaan inta aanay boqol u gelin culimmada ha weydiiyaan oo ah xilli hadduu wixii saxan yahayna ay ku socon karaan haddii uu khaldan yahayna ay ka joogi karaan haddii wax laga saxa u baahan uu jirana oo la sixi karana ay saxaan. taasi waa marka koowaad waxaan ku tarin lahaa. tan labaad heshiiska aada la gashay dee haddii faahfaahintiisii iyo qoraalkiisii iyo wuxuu qodobo ka koobna aan arko baan horta ra'yi cad ka dhihi kari lahaa heshiiskaagan waa saxan yahay iyo waa khaldan yahay. waxaa dhici karta intaad sheegtay qodobo aan aynu heshiiska ku jira inay saameyn yeeshaan. marka heshiiskaagu adiga aada gashay oo dhani wuu saxnaa iyo ma saxnayn ma dhihi karo maadaama aanan haynin. keliya waxaan dhihi karaa intaadii weydiisay laba qodob baa baraarujin mudan ama tilmaan mudan. kambanigu muslim iyo gaal wuxuu doonay ha noqday iyo shakhsiga iyo shirkaduba waxbaa laga iibsan karaa qiimo go-anna waa lagula heshiin karaa oo muddo go-an lagu bixinayo. wayna bannaan tahay haddii sida aad sheegtayba ay tahay qiimahan ma kordhayo haddii ay tahay asalku caqdi bannaan wey oo intaasi intii xuduudda sharciga bannaanayd weeye inta aad ka sheegtay. hal mid baa u baahan waxaan u malaynayaa in wax intaa ka badan aad ka sheegto. qadiyaddaa xilligii ka hor haddaan ku dhammeeyo lacagtii qayb baa iga dhacaysa faa'iidahayda la isaaranayay
dee way dhici kartaa wej sharciga inay yeelato oo haddii wuxuu noocan mushaarakada ay tahay mushaaraka almutanaaqisa ama domination mushaaraka ay yidhaahdaan way dhici kartaa in wixii isdhimo haddaad waqtigii ka hor ku bixiso waayo asal saamiya iyo faa'iidadii baad ka gadanaysay mar kastood wax bixiso ood qayb dhiibtaba laakiin hadday nooca muraabaxada ahayd oo qiimo go-an lagaaga iibiyey waqtigaa ka hor haddaan bixiya lacagtii qayb baa isdhimaysa heshiiska ka mid ma noqon karto marka heshiiska caqdigaaga qayb nooca uu ahaa baanaan garanaynin laakiin qodobkaasi waa qodob intaa ka badan faahfaahin inuu saa'ilku ka bixiya u baahan haddii ay muraabaxa hal qiimo oo go-ana ay ahaydna way khaldantah in wax isdhimo maaha haddii aynan ahayn oo aad qayb intaad bixisay isla yeelateen ood iyar iyar ula wareegaysayna dee xilliga hadduu soo gaabtana way isdhimi kartaa hadduu batana way dheeraan kartaa sida qaacidada almushaaraka almutanaaqisa loo yaqaano ama domination mushaarakada ay yidhaahdaan soo yaryaranayso billahi towfiiq qof kale ayaa waxa uu leeyahay sheekh assalaamu calaykum waan idin salaamay sheekh iyo shaqaalaha TV-ga Somali Channel waxaan ahay nin leh baabuurta waaweyn ee samtareelada marka sakimo lagu leeyahay baabuurtaas hadii lagu leeyahay si qaabkee loo bixinaya alxamdulilah masaladu waxba samtareelayaal dhihi mayne qaacida guud waxyaabo badan bay la wadaagaan waxa la yiraahdo zakaatul caqaarka ama la yiraahdo kutubteena fiqiga mustalaxa ay u yaqaanaan almustaqallaat tijaariya waxyaaba iyaga lafahooda aan ganacsiga u oolin laakiin laga faa'iideystay la maashado gawaari tareelayaal aad leedahay sida hadda aad sheegtay tareelayaal ma yahay gawaari weeye laakiin basas baad leedahay shaqeeya magaalada gudaheeda ama tan iyo banaankeeda ka shaqeeyaan sharikad taksiye aad leedahay gawaaridan hay-adaha laga kireeyo company oo shirkada ama mid ama lamaba ka badan baad leedahay waa gaadiid baan ka hadlaynaa intaas waxaa lamid ah guryaad leedahay guryo deegaan oo la kireeyo guryo hoteelo oo la kireeyo aad leedahay dhulal aad kiraysaad leedahay dhulka iyo guriga iyo gaadiidkan lafahoodu beec iyo ganacsi maaha waxaa lamid intaas warshad baad leedahay wax soo saarta warshadu waxbay soo saartaa laakiin biraheeda iyo dhismaheeda iyo qalabkeeda rakiban beec maaha waxa la siibiyo ni siibiyo soo iibiyo matid bakhaarro waaweyn baad leedahay la kiraysto warshad wax soo saartaad leedahay ama gaadiid ha soo saarta ama cunto ha soo saarta ama cabitaan ha soo saarta waxay doonayaan soo saarta waxa iyo waxa la midka waxaa la yiraahdaa almustaqallaat tijaariya waxyaabaha ganacsi ahaan baa looga faa'iideystaa iyaga lagama ganacsanayo adiga iyo waxaa kala duwan tareelayaal baad u leedahay nin tareelayaasha meesha u yaalaan wuu iibiyaaba iyaga laftoodu iibiyaa adna iyaga aad kiraysaa nin baa guryahan dhisoo iibiya ninna waa dhistay oo waa kiraystaa nin baa warshado samaysa oo iibisa midna warshadan lafteeda wax ii samaynaysa buu leeyahay waxyaabaha iyaga laftooda aan la beecinin laakiin laga faa'iideysto la kireeyo ama wax soo saara baa zakaatul caqaar marna la geliyaa marna almustaqallaat tijaariya waxyaabaha tijaar ahaan looga faa'iideysto laakiin iyaga aan ganacsiga hayn baa la yiraahdaa marka warka hordhaca waa ku dheeraadee waxyaabaha sidaas ah jamhuur ahli ilmi rahmatullahi alayhim waxay yiraahdaan wax zakaa kuma waajibto iyada laftooda zaka laga bixin maayo sanadku markuu dhamaadana la qiimeyn maayo sanadku markuu dhamaado la qiimeyn maayo isbitaalada kamida dadka isbitaalka leh intay dhisaan aan sii gadaynin ee isbitaalka shaqeynaya kamida iyo clinicska waxyaabaha la midka iyaga iyo qalabka yaala lama qiimeynayo oo sanad walba intaad qiimeyso zaka ka bixi maaha wixii soo saaraan baa xoolaha kale ama lacagaha kale leedahay lagu dari sanad markuu u soo wareego wixii zaka gaadha boqolkiiba 2 baad ka bixin billahi tawfiiq sheekh qof kale wuxuu leeyahay assalaamu calaykum waxaan rabaa inaan sheekha weydiiyo haddii khudbada jimcaha af Soomaali lagu akhriyo ka waran sheekho alxamdulilah khudbada jumcadu maqsad iyo gaaya loo jireeyay waxayna la mid tahay khudbooyinkii kale nabigu akhriyi jiray ciida iyo roobdoon haday tahay haddii ay tahay qorax iyo dayax madoobaad iyo ama qorax madoobaadka tuu nabigu akhriyo sallallahu alayhi wasallam
khudbada maqsuudka loo jideeyey dadka in la wacdiyo waxna loo sheego lana waaniyo waxna la baro way haddii mujtamaca aada la hadlayso intiisa badani ay fahmayaan luqadii carabiga asalku luqada carabiga inaad ku jeediso way hadiga nabiguna sallallahu alayhi wasallam laakiin isaguna carab waa qowmkiisana carab bay ahaayeen laakiin haddii aynan jirin dadku badankood aynan fahmaynin oo maqsuudkii iyo ujeedadii khudbada loo jireeyay asaaskii aan laga helaynin oo dadka aynan garanaynin dadka khudbada luqaday fahmayaan in loogu aqriyaa asala sidaasayna culimmada in badan ka mida qabaan oo ka mid yihiin shufaqada shaaficiyada qaybo ka mida raxmatullaahi calayhim jamiican saas darteed laakiin si labadaba loo jamciyo culimmada shardida carabiga ee arkaanteedii waa in luqa carabiya lagu helo tiri iyo maqsuudkii khudbada loo jideeyey waxaa wanaagsan bay culimmada mucaasiriinta iyo aymo badan fadilayaan in carabigana qayb lagu sheego luqada kale dadka marka ay garanayaan ingiriis iyo af soomaali iyo af sawaaxili kay doonayaan ha noqoto iyo chinese iyo hindiya luqada dadka lala hadlaya ay fahmayaan maqsuudkiina loo turjumo si khilaafkan aad uga baxdo al-khuruuj min al-khilaaf mustahabun qaacida loo yiraahdo khilaafkii carabi waa in meesha ku jira warkaanta carabi lagu sheegan aad uga baxdo sunnadii nabiga sallallahu maadaama carabi ku khudbayn jireen taa aad u tashabuhdo maqsuudkii iyo ujeedadiina loo gaaro khudbadii carabina lagu daro luqadii dadku fahmayeen lagu darana waa sida wanaagsan wabillahi tawfiiq sheekh qofka leeyahay waxa uu leeyahay assalaamu calaykum waan idin salaamay shaqaalaha TV-ga Somali Channel iyo Sheekh Maxamuud Shibili sheekh waxaan rabaa inaan ku weydiiyo hadda ka hor ayaa aniga aan garanayn waxaan qaatay lacag riba ah aqoon la'aan ayaa ii geysay oo saas uma aqoonin haddana waan iska bixiyay sheekhow maxaan sameeyaa alxamdulilah dib wixii ogaal la'aan ku dhacay insha Allah waxay noqon cafa Allahu amma salaf haddii ogaal la'aantaada aad cudurdaar ku lahayd waxaan ku dhihi karaa kaliya waxa way laba qodob wixii horena waxay dhici kartaa inuu ka soo gaaray istighfaar iyo Ilaahay toobad keentay dambiga inuu ka dhaafo weydiiso qodobka labaadna waxa dambe muamalaadka maaliga ee galaysa ribada wax khatar badan weeye wax ka bara ahkaamteediyo wixii aad galaysana culimada weydii ee mugdi ka gali karo billahi tawfiiq qof kale waxa uu leeyahay assalaamu calaykum sheekh su'aashaydu waa anoo bas ariiriyo ku jira oo quraan akhrinaya ayaa waxa igu timid aayad lagu soo jeedayo anna ma awoodin ilaa hal saac kadib sheekhow haday igu timaado maxaa igu waajiba alxamdulilah horta wax kugu waajiba ma jiro sujuuda quraanka marka la aqriyo la sujuudo asaxul qawlayn sunna way ama gaari saaraw ama gurigaaga iyo masaajid fadhiya hadii aadan sujuudin badanbi maaha inaad sujuudda ajir iyo fadli baad ka heliyo sunna weeye waajib maaha marka su'aasha dadka maxay igu waajiba waxba waxa waajib kugu maaha sunnada haddaad rabto inaad gudato maxaad samayn kartaa laba khiyaar baad ay ku furanta waa sunno laga tagi karee quraankaagana aad iska wadato oo sujuudana isaga tagto iyo meesha aad ku aqriyeysay inaad ku sujuudo waqtiga la aqriyay bay sujuudu joogtaay hadhow xagga markii la tagay guriga maaha meesha aad ku sujuudaysa maxay tahay macnaheedu da sujuuda naafilada salaada naafilada ay akthar shay shabahada farad iyo naafilada meel aad ku sujuudda hadaad weydo madaxa lagu midaaraayo lagu ishaaraa inaad madaxa intaad kari kasto hoos u yar foorariso baa laga rabaa laakiin hal mas'alo kala muhiim inaad ogaato sujuuda tilaawada ahkaamu salaad miyay qaadanaysaa khilaafka culimada ee ku jira baa ku saameynaya hadii la yiraahdo salaad bay la mid tahay sujuuduna waa xubinta ugu fadliga badan salaada mar hadii sujuud noqoto inta kalena waa la raacinaya ahkaamteedii tahaara laga rabaa inaad weyse qabto waxa laga doonayaa in hadaad kari karto qiblada u jeesato waxa laga doonayaa awradii inaad asturto hadii culimada qaar sida ay qabaan la yiraahdo salaadoo kale ahkaamteedii ma laha weysana looma baahna yastrul awrana deedan weyse qayb baa iska sujuudi kartaa bay noqon khilaafka uu ku saameyn doona ninka culimadeedu weydiisana hadhow wuxuu ku dhihi doonaa hadba ra'yiga uu ka qabo aniga waxa raajix la salaad inaan hayno
استقبال القبلة واسد أصل كسجودها لكن طهارية حبوا مباهنا حلي النبي عليه السلام يضل طهارة قبل عندنا الله شرطين بقى لو ذا سجودي جلسة سورة النجم مركو عقرية وكلاتية صلى الله عليه وسلم وبالله التوفيق شيء قفك لا يوحي waxaa jira wiil aan wada joognay 5 bilood dhaqan wanaagsan ma aanan ku arag taas oo durbaba igu keentay in aan ka moraal jabo iyo in aan ka raasado agjoogiisa oo aan dan ka gelin marka sheekh aniga oo ka fogaanaya inuu dambi iga soo gaaro karaahiyada aan karaasaday agjoogiisa ma ka dalban kala furiin alxamdulillah horta dadku markay isguursanayaan say quluubtu waxa israbo isjecel u noqon karto bay haddana quluubtu intay kala boodo isnici kartaa iyadan wax ceebaba jirin nabiga alayhi sallallahu alayhi wa sallam dadka waa ka tilmaamay yiri alwarwaahu junudun mujannada fama taarafa minha talaf wama tanakala min ikhtalaf arwaaxdani waa junuud ilaahi abuuray bay ahaydoo jirtay oo makhluuq ahayd inta aan jirkan la gelinin in adiga ba lagu abuurin jirkaaga bay ruuxdaadu abuurayd arwaaxduna is aragtay ahaan jirtay markay jirka gashay kadib labadii arwaaxdoodu istaqiinay intaan jirkooda la gelinin markay is arkaan durbo way isfahmayaan labadii aan isaqooninna walaalaba han noqdaane markii ruuxdii la geliyo way kala boodayaan sadarta waxaad arkaysaa laba maanta isu timidood weligood inay is yaqaanaan aad moodayso arwaaxdooda istaqiinay intaan jirkooda la abuurin la gelin laba walaalo ah oo isugu bixinna waad arkaysaa arwaaxdoodaan isaqoonin marka quluubtu way kala didi kartaa haddaba gabadhu haddii intay ninkii sabab kastaba ha keentee nafteeda ay ku kari weydo oo naftu ay diido dalaaq iyo fariin way dalban kartaa xilliga nabigeena dhacday sala allahu alayh wasalam thaabit ibn qays ibn shamaas oo saxaabi ahaa sida imaam albukhaari fii saxiixi keyrkood warinayaan bay xaaskiisii nabigu u timi sal alla alay wasalam markaas waxay rasuulka ilaahi oo thaabit laa actibu calayhi fii diinin walaa khuluqin diintiisana kuma dhaliilsani dabeecad iyo dhaqanna kuma dhaliilsani laakiin waa nacay walaakinii akrahu lkufra fi lislaam anoo muslima xuquuqdiisii inaan gudan waayaan ka baqaya laa ana walaa thaabitun bay hadalada ka mid ahaa aniga thaabit isma arki karno indhahaygu inay arkaan ma doonayo waa nacay naftaydaa ka soo booday ma doonayo laakiin waxay saas tahay kumayna xadgudbin waxay tiri diintiisana kuma dhaliilsani dabeecadna kuma dhaliilsani laakiin waan ka soo booday marka waxaan ka baqayaa anoo muslina xuquuqdiisa inaan gudan waayo oon xaqiisii ku kufriyo ninkoon haweentu xaqiisii gudan weydana in kufri lagu magacaabo nasuus kale nabiga ka sal slam watakfurna alcashiira waa kii la yidhi nabigu alai slam markuu arkay gabadhu meeshay taagan tahay thaabit wuxuu yidhi beer weyn xoolo badan buu ku siiyo aad buu kuu jeclaaye xoolihiisii muu celinaysaa markaas tiri xoolaha dhan waan hayaayo waa celis thaabit buu u yeero wuxuu yidhi warnihow beertaadii weyneedii iyo xoolihii fiicnaana qaado gabadhan iska sii daa halkaa nabigu wuxuu qiray sal alay wasalam hadday quluubtu soo kala boodo inay tahay furitaan la kala dalban karo gabadhiina xaq maliid ma dhihin oo ma canaanay nabigu sal alay wasalam wabillahi towfiiq qof kale ayaa waxa uu leeyahay sheekh assalaamu calaykum faysal waa idin salaamay adiga iyo sheekh shibili waxaan ahay gabar Soomaaliyeed oo ku nool wadanka Mareykanka maalin baa waxaan damcay inaan dukaan wax ka gato dukaanka waxaa kaashiir ka ahayd gabar aan aqaano markaas waxay igu tiri waxaan ku siinayaa discounti markaas waxaan u maleeyay in ay shaqaalaha discountigiisa wax iga siinayso waxay iga iibisay alaabtii kala bar qiimahoodii iyadoo baqaysa bay waxay igu tiri ma soo celin kartaa alaabtan sababtoo ah waxaan soo celin kartaa alaabta aan ka gaday sababtoo ah waxaan kala kulmay dhibaato markaas kadib ayaan waxaan ogaaday in ay si tuugnimo ah wax iiga gaday marka alaabtii dukaanka kuma celin karo oo ama lacagtoodii uma celin karo waxaan xisaabi lacagta ka dhinay dabadeedna waxaan siiyay dad ehelkeeda ah marka sidaas lacagtii ma iga gudmaysaa sheekhow alxamdulilah horta ma celin karo maanan fahmin haddayba iyadii shaqaalahayd soo celi alaabtii leedahay waan cabsanayaa ay ku dartay alaabtii ma soo celin kartaaba hadday leedahay dee iyadaa say u maarayn taqaanee inay alaabtii u celisaa lagu leeyahay alaabta soo celin karta waxaan kala kulmayaa dhibaato ayay ku tiri wixii horena xoolaha qof hadduu leeyahay qofka bini aadamka xoolihiisa gaal xarbi oo dagaal khaniimaad kaga qaadatay aan ahayn khiyaano iyo musuq maasuq laguma qaadan karo
ama muslim ha noqdo ama gaal ha noqdo nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa ka sugan qofka muslimkaana sida saxiixa ku qoran laa yaxilu maalu mri'in muslimin illa bi tibi min nafsi isaguna raali kaaga yahay maahane xuriisa ma qaadan kartid hadduu gaal yahayna alaa man dalama mucaahidan xadiidkiiha waxaa ka mid ahaa ama xaq ka qaata bigayri tiibi nafsin minhu fa ana xajiijuhu yowma alqiyaama qofkii haddaa isagoon raalli ka hayn xataa gaal aan dagaal idinka dhaxaynin xolihiisana haniimo kugu bannaanayn haddii aad ku qaadatay isagoon raalli kaaga hayn khiyaano nabi maxamed baa qiyaamada kula soo istaagi doona dee waa meel adag meesha nabi maxamed alayhi salaam cidda kula garamaysa ee kula doodaysa uu noqonayo sala allahu alayh alihi wasalam meel adag wey xaaraan weyn iyo dembi weyn aad ku jirtay tusaysaa adigu xoolaha aad qaadateen adiga saaxiibaddaa ciddii lahayd inaad u celisaan bay idinku leedahay xoolo la soo qaatay oo ciddii lahayd la yaqaano cid kalaa la siiyey iyo dad masaakiina la siiyey xaq kaaga gudmi maayo xaqa masaakiintiiya waxaa loo siiyaa markaad qofkii lahaa garan weydo wabillahi towfiiq qof kale ayaa waxuu le sheekh walaal magacaygu waa cabdinaasir saxane cali waxaan ku noolahay wadanka Mozambique waxaad ii weydiisaa sheekh Shabeli niman baa lacag iga qiyaanay niman ayaa lacag iga qiyaanay aan aaminay heshiis baan la galay waan aaminay lacagtii baan u dhiibay kadibna waa la igala goostay lacagtii oo shilin la ima reebin xitaa wadankan markaasi joogay oo aan qariib ku ahaa waxaan waayay muddo 7 maalmood ah wax aan cuno maalmaha qaar biyo caadi ayaan cabi jiray kadibna waan ku siixan jiray $10,000 ayay ahayd lacagtayda sheekhu dadkaas xaq ma u leeyahay inaan habaaro oo aan iraahdo ilaahay meel xun lacagtayda hayn kala baxsho dhibaatana kala kulma markaas qofkii dambiga galna waliga waan cafi jiray alxamdulilah habaar haa وهذا دعوة المظلوم وي النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس البخاري غير كوريين markii uu u diray Yaman Mucaadiya u dirayay ee shahaada islaamka ugu yeedho yiri wuxuu yiraahday ka yeelaan u sheeg sadaqa ilaahay inuu ku waajibiyay wuxuu nabigu daba dhigay sanadka aakhirkiisa jumlada qaybteeda wuxuu yiri wa iyyaka wa karaa'ima amwaalihim iyagiyo xoolahooda wan wanaagsan iska ilaali xaq darro inaad kaga qaadato واتقي روايتك قاركو دعوة المظلوم قف عبد المذي هباركيس اسكيرالي فإنه ليس بينها وبين الله حجاب يدي الله حجاب مرد حيو دعاء مظلوم كقال بهن نقضي هو أقبله صدرت دتك مظلوم هدي أتهي عدي كود المذي وحورا كاقادتي أما حق لك كاقادتي قفك ويؤبنانتهي بناني هدي اللي يراد إنه هباره ويؤبنانته وانا دعوة المظلوم كسا إلهي كو أقبل سبحانه وتعالى وليس وحن له لها دعوة الدعاء بدل إلهي وحضو بريضا إيجان إنو صوها نوريو حقا جينا كاقا سوعريو لبات كفايدي هدي دعاء إلهي كأقبله وحاقي واذهلي إيجان بلايا كود على وحاكا في عن إيجان إلهي إنو هنونيو وناكسنا ذانا دعاء ذو دعايسي أدنى ملك با إله ولك بمثل أنت إن لك إله سيكو ليه مركا لبا فايدو إن هذو الله باري ده مرد إلهي باري يسو لبا الله باري إيجان إلهي نصوحا نونيو دعاء هذا الله أقبل أجر بات كهلي أديقنا وحاقي إلهي كاقسو عليو كاسيو دي وحاقي بعد انتفاع سن لكن تذهب بارت البلايا دي كل عضو دي أدونك حقا انتفاع سن ميست قف إلهي نكوسو هنونيو تصبب ونقطنا وحوين أجر بدن واي صدرت وحن له لها إلهي بري لكن إلهي الدعية أدنى الدعيسو لكنها هبارد لكن هذه كتجي ويدنا هذا هبارتوت كعيل بحضه أصلها هو بنات عندي ساكو دول مذا هذا دول بقاسي شرب بالله توفيق شيخ قفك لا يوحوا لي شيخ بعد السلام وحن نقول سيدي سنة كهر دور مر أيان سميه أرين هذا يشكي جلسي تاسوه لما مر وازقفني أيان حاسكي وحن كيري وأنا كفرية أو رقد أقرأ لكن مرقاتي أميين مركان جوريك كبحينا أنا كقومي إسلامانين تينا وحن أشيء إن أهين تاسي أي محوها يشيء أي من الذي يسيجرين وعن ربنا إن حاسكي سيدي النقطة مركل أي أحدنا سيدي وكلا عن كل حلاقني أنا وكل جوجنا لبودنا وكل مركز أيان أحدنا وحن كيري وأنا كفرية أيدين ويجدي ويقعد كيستين أنا مرضم بمحوها يشوفون كاس أي